markaana aan la yeelan doonaa dhalinyaro group ah isla markaana lagu magacaabo Some Action Films. Dhalinyaradan waxa ay soo saareen dhawaan film ka hadlaya kufsiga iyo waliba tacdiyada ka dhaca Afrika gaar ahaan Soomaaliya. Marka hore waan soo dhaweynayaa soo dhawaada saddexdiinaba. waraysiga intuu socdo waxaad ku daawan doontaan filimkii ay soo saareen iyo waliba maskaxdii lahayd curinta. Marka hore waxaan soo dhaweynayaa Bilo Faysal Bile Faysal Bile soo dhawow. waxaad ka warbixisaa muddo intee laag ayuu kugu qaatay filimkan, maxaase kugu dhaliyay inaad curiso? Ismaaciil aad u maasan tahay adiga iyo Somali Cable TV. waxaan rajaynayaa dabacadnahay markii saddexaad aan ka qayb qaadanay barnaamij gaar ah oo aan kaga hadlayo film aan aniga sameeyay. xaaladda maaragtay gabdhaha Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka dalka ku gaaraan, ka hadlaya dhaqamada soo jireenka ah ee qaladan ee lagu xaliyo kufsiyada ka dhaca dalka, ka hadlaya ama dhiirigelinaya ciidamada Soomaaliyeed inay dabcan ka qayb qaataan ama ay garab siiyaan cid walbeeto maaragtay ama gabar walbeeto dhibaato soo gaartay, dhiirigelinaya gabdhaha dhibaatooyinka tii ku dhacaan haddana haddii baadiyaha ahaaleed, haddii dabcan dalka gudihiisa ahaaleed, haddana lagu xaliyay qaab dhaqan Soomaaliyeed ah. dhaqankaasoo dabcan ah mid qaladan maadaama qofka hadduu dhibaatada gaaray si hoos loo xaliyo sharciga aan la marsiin, taana kaleftay in kufsiga uu sii siyaado ama siyaabooyin kala duwan kufsiga u dhaco. taasaa marka keentay inaan sameeyo filimkan. waa gartay muddo intee la-eg marka oo idinku qaatay inaad soo saartaan filimka? horta filimka ilaa iyo muddo wuxuu qaatay 5 bilood. aniga ahaan duubistiisa markii laga soo tago inaan aktaradii helo, inaan dabcan sheekadii qoro waxay qaadatay muddo 1 bil iyo bar ah. duubistiina dabcan iyo waliba post productionkii ama qaybtii waxay qaadatay muddo inta hartay ay runtii intaas isu qaadatay. marka waqtigaasoo dhammaystirna ku baxay. haddana filimka shaqadiisa aysan ahayn keliya in jilaayaal ay ka qayb qaataan oo sheekada waxa waaye waa loo dhammaystirnaa. tiim badan ayaa filimka shaqeynaya oo loo soo xulay. haddana waxyaabaha filimka intuu soo baxay adkeynaya ama shaqadiisa badinaya waxay ahayd in la helo karakteradii saxda ka qayb qaadanaya filimka. sababtoo filimka odayaal ku jiray, maamooyin ku jiray, marka way adkeed in intaasoo dhan ma aragtay isku keeno laga dhadhacsiyo filimkii shaqadii la bilaabo. taasaa keentay runtii inuu filimka muddo aad fara badan u qaato. waa gartay filimka uu soo baxay saameyn xoog leh wuxuu ku yeeshay baraha bulshada, walow uu ku soo aaday xilli sanadkii tagay kufsiyada Soomaaliya ka dhaca ay aad maaragtay markaas ay u bateen. ka waran falcelin intee la-eg ayaa ku soo gaartay markii filimka uu baahay adiga iyo tiimkaadaba? horta falcelinta inta ugu badan waxay ahayd runtii taageerid iyo dabcan in emotional dadka ay noqdeen, because filimka sababta u sameyn waxay ahayd in emotional uu noqdo ama dadka dareen gooni uu geliyo. dareen badan oo qarsanaay ama waxyaabo badan oo dadka dhex guuxayeen ay rabeen inay ogaadaan aan ogeysinay. haddana wax dadka ugu badan oo filimka runtii aad u saameeyay waa dadka qurbaha ku nool ama qurbaha waqti badan ku noolaay, maadaama qaarkood aysan ka warhaynin macnaha dhaqamadan soo jireenka ah ee maaragtay gabdhaha dhibaatooyinka lagu gaarsiiyay. sidoo kaleeto in booliskii maaragtay ama dalkii si fiican filimka ugu faafay oo la fahmay in muhiim ay tahay in nin walbeeto gabar kubsado ama gabar dhibaato gaarsiiyo in sharciga la marsiiyo. in sidoo kaleeto gabdhihi haddana ay dhiirigelin ku arkeen maaragtay gabar walbeeto dhahdaa haddii halkan dhibaato ay gaarto macnaha ma ka aamusayo maaragtay waxa waaye waa soo banaanka u soo bixinaya. marka taasaa isku keentay oo filimka dabcan oo falcelin ahaan u helay. Faysal ku soo laabanaya waxaan rabaa marka hore Ifraax inaan ka bilaabo oo iyadu doorka atirishada lahayd door muhiimna ka qaadatay in filimkaasi uu aad maaragtay uu qurux badnaada. Ifraax oo ku jileysay Basra oo ku jileysay magaca Ifraax adiga iskoolka u jeedo oo maaragtay uniformkii ku labisan waa inta lagu afduubtay dabeetna dhibaatada ogeed lagu geystay. bal ma markii kugu horeysay oo aad filim jishaa doorkan ma adiga xushay mise directorka ku xulay?
dabcan filan ahaan markii la dhaho waa markii ugu horeysay aan filan jilo laakiin waxyaabo kaleeto hore u sameyn jira doorkan aniga ma xulanin laakiin Faisal ay soo xulay oo asaga wiil jaamacad isla dhigana ah ilaa ay muddana ay isnaqaanay mar dambe ay wuxuu soo bandhigay in filankan qaybtan ka noqdo kabacdina ana waa ka ogolaaday sidaas oo ku qaatay doorka waa gartay ma jirtay inta lagu guda jiray sameynta filimka caqabadooyin aad la kulantay shakhsiyan dabcan caqabadooyin badan waa la kulmay haday ahaato dhan asxaab haday ahaato dhan fahmi kartaa markii loo filim qayb kufsi ajilaya gabadhaada hadana waxaa lagu dhahaa kufsi maxaa dhac sharaftaada waxaa naxismiya dabcan waxay markaa sameynaysid ma aha inaa wixii aa run u sameynaysid kaliya baraarujin inaad dadka baraarujisaa u soo bandhigoosaa wixii dhab ahaan kuugu dhaco soo maaha laakiin xoogaa waqti u baahan tahay in laga dhaadhiciyo waa jisheen filimkii dabcan aad ka qayb qaadatay qaybtaadii aad ku lahayd kufsiga marka uu filimkii baahay falcelin intee la eg ayaa kusoo gaartay falcelin aad u weyn intuusan filimka soo bixin ba horta marka hore dadka aad ii su'aalayay goorma soo baxaa filimka been muu ahaa maxaa dhacay inoo Soomaali waa taqaana dulqaad ma laha wixii waxay u leeyaan wax si saal inta lagu sameeyo hadana si saal lagu soo bixinaayo maalin buu qayb la duubayaa hal maalin la sameeynaayo ma marka laakiin dadku waxay tusayeen inay taageerayaan oo filimkayga aad u sugayaan marka saas falcelintaas taageero buuxda ma ka heshay haweenkii oo iyagu maaragtay aad dhiirigelinayso aad ku dhiirigelinayso in wixii ku dhaca markaas aysan qarsanin oo ay maxkamadaha iyo goobaha maaragtay ay raadsadaan dabcan waa ka helay markii la dhaho baraarujinta haddana hablaha inta badan ma afkooda ma u hadli karaan ayo dhibaatada ayaga soo gaarta marka qof haddii ay helaan u hadlo way taageerayaan weli rag badan ay taageero dumar bis ma ahan maxaa la saas waa gartay Masraay markii aad aragtay in dhibaato ay kugu dhacday intii aad filimka jilaysay haddana aabbe iyo dadkii qaraawada maaragtay markaasi ay soo qaateen dhaqankii Soomaalida ay ku xeeriyeen xaaladaadii adigoo waliba dhaawac ahoo maaragtay gurigii falaanbay kugu suran tahay maxaa dareentay maalinta igu dhibka badneed ee markaa oo qaybtaas aad duuweene fiidiyoyaal iska qaada aqadka dhigay dadka dhan run u maleynayeen isla maalintaas klibka la iga duubay dad badan run u qaateen telefoonkayga busy waxa ku noqday qof walba inta soo wac ma loo kufsad ilaa hadda waxa la yiraahdaa dadka qaar fil inuu yahay xataa u fahansaneen markaas intii soo wacaan waxay leeyihiin waa loo kufsadaa maqlasay waxa jiraan marka dhibaatooyinkaasna iska leeyahay xogaa dadka inay aad fahmaan teed kaleetana su'aalaha ugu badan meeshaas ay ka imaad qaybtaas wayahay Masraay ku soo laabanaya dhinaca kale waxa fadhiya nin lagu magacaabo Saabir balse actorkii filimka ahaa isla markaana wax badan maaragtay markaas filimka ku soo bandhigay waliba isagoo muujinaya awoodda ciidanka qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan booliiska waa tahay Saabir soo dhawow waxaad ka warbixisaa bal dareenkaaga runtii oo Ismaaciil marka hore aad baad umahadsan tahay waxaa sharaf ii ah maanta inaan halkan idinku soo booqdo adigii bahda Soomaali ee Cable TV runtii haddii markaas aan cabiro dareenkayga ku saabsan filimkii aan qaybta ka ahaa wuxuu ahaa filim markaas lagu muujinayay ama lagu cadeynayay dhibaatada markaas loo geysto haweenkeena Soomaaliyeed oo kufsi iyo tacdiye inta loo geysto haddana lagu xaliyay qaab markaas habdhaqameed ah oo markaas caadi iyo soo jireen noo ahaan jirtay runtii macnaha aad baan ugu faraxsanaa inaan qayb ka ahaado projectka macnaha aad ku wanaagsan oo loogu gudbinayo fariintan aad muhiimka ugu ah bulshada Soomaaliyeed wagartay ma qaybta filimka ka jilaysan adiga dooratay mise si la mid ah Basro ayaa directorka ku dooray inta fiiri meelaha ku fiican tahay runtii ma aanan dooranin wax walba directorka dooray markii uu yiri macnaha qaybtaas ayaan jeclaan lahaa inaad filimka kaga matashid aad baan ugu farxay qaybta liidhiga waxay ahayd qayb aad u muhiimsan oo markaas macnaha tusayso macnaha in markaas la caawiyo dumarkii marka aniga ma aanan dooran directorka ay dooray wagartay adigoo taliya ah marka aad soo badbaadisay gabadhii ninkii falka u geystay inaad soo qabatay maxaa dareentay runtii
maalmihii koowaad ilaa maalinkii aan sameynaynay qaybta taliyanimada waxaan isku haystay inaan taliya ahay guriga markaan tago kale saas intaan u fariistaa waxaan dhihi jiray dadka runtii macnaha waxaan isku haystay markaas qof powerful oo markaas awood leh ma ahayn kaliya macnaha in character aan ka ahaa meeshaas oo kaliya laakiin haddana waxaan dareemayaa markaas inaan ahay qof markaas taliya ahaa falcelin intee la eg ayaa ku soo gaartay kadib markuu baahay filimkii oo dhanka bulshada maadaama dhanka wanaagga aad adigu door weyn aad ka geysatay inaad gasho runtii falcelin aad u wanaagsan ayay dadku markaas naga siiyeen way nagu ammaanayeen doorarkeena oo dhan filimka macnaha siduu muhiimka ugu ahaa bulshada inaan la wadaagno intaba waxaad arkaysaa marar qaar markaan jidka marayna in la dhaho taliye oo macnaha goorma macnaha kiis dambe lagu dhiibaya oo kale in la dhaho marka runtii falcelin aad u fiican aan kala kulannay filimkan markaad fiiriso waxaad moodaa filimada internationalka waxba muusan ka duwaneen oo dadka aanan luuqadda af soomaaliga aanan fahmaynin xitaa qoraal oo waxa loo sameeyey markaasi english ah oo international ah english maadaama international uu yahay ma jiraan filmaan kale oo sidaa la mid ah oo hore aad uga soo qayb qaadatay runtii Ismaaciil haa filmo badan oo aan ka soo qayb qaatay oo jiraan intii gudaha wadankan imid short movies aan ka qayb qaatay way jiraan sidoo kale laakiin intii dibadda aan jiray ayaa waxaa jiray dhowr movie oo aan ka soo muuqday oo markaas ahaa lagu soo bandhigay tiyaatarro waaweyn marka ma ahayn markii ugu horeysay meeshan aan film ku sameeyo maadaama dibadda aad maaragtay filmaan shortiya aad ku jiri jirtay dalka markaad timid film weyn lagu dhiibay qayb muhiim ah laga siiyay ka waran maxaa dareentay isbedel aankay ah runtii horta aad bay farxad igu ahayd in markii ugu horeysay wadanka markaan imaaday la ii dhiibay macnaha film aan ka soo muuqdo filimkaas oo macnaha dadka sameynaayo dadka jilaayo dadka macnaha wax walba castiga kuruga kulli macnaha ay Soomaali yihiin runtii macnaha qeyra aad macnaha ay igelisay in markaas aan maalinkii ugu horeysay waxaad u malaysaa in markaas kaliya inta meel fariista aan fiirin jiray aan dhaho waaw waxay ku tusaysaa horumarka markaas wadankeena iyo dhalinyaradeena markaas ay ku talaabsanayaan oo ay damacsan yihiin markaas inay la jaan qaadaan heer international oo kale waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka Faisalow haye qaybihii dambe ee barnaamijkan soo gaarnay maxaad fariin oo aad dir lahayd mase jiraan filmaan kale oo aad u soo wada bulshada sida filimkan oo kale oo kufsiga oo aad maaragtay markaas u qabsaday baraha bulshada gaar ahaan Soomaaliya horta Ismaaciil waa maasan tahay horta bulshooyinka Soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan waxaan kula talin lahaa in meel looga soo wada jeesto tacadiyada loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed ama kufsiyada kala duwan sidoo kale maaragtay booliiska iyo odayaasha Soomaaliyeed dhammaan inay fahmaan in dumarka ay nagu leeyihiin xuquuq aad u weyn muhiimna ay tahay in cid walba dib gaarsiiso laga hortago sidoo kale dhalinyarada Soomaaliyeed ayagana waxaa kula talin lahaa in gabdhaha ay u ilaaliyaan sida walaashooda kaleeto sidoo kale tan ay ka taxadiraan mustaqbalkooda sababtoo ah gabar ay ku lalato waa dhashay waana u dhaxaysaa marka waxaa wanaagsan in si aad ay u ilaaliyaan sharafta gabdhaha waxaan rajeynayaa in dabcan filimkan uu noqon doono wacyigelin buuxa sidoo kale tan ay ilaalin doonaan ama ay ka hortagi doonaan kufsiga waxyaabaha lacaynka ah dhanka haddii aan u soo jeesto waxyaabaha ay qorsheysan horta runtii mar walbeeto waxa ay qorsheysan inaan ka qayb qaato wacyigelinta dalka film walbeeto aan sameynaanay runtii waxaan isku dayi doonaa 90% inuusan noqon maalaha yacni ama sheeko iska caadi ama sheeko alifan waan ku beesgareeyo xaaladda dalkeena amaba dhibaatooyinka dalkeena anigoo dhanka siyaasadda aadi doon ilaa meel iskaga dhacayso laakiin insha Allah waxaan isku dayi doonaa inaan wacyigelinta qaybadeeda kala duwan aan ka qayb qaato waliba aan shorti aan ku ekeenay feature film ilaa iyo full film inaan sameeyo oo aan kaga hadlayo ama dabcan aan kaga hadlayo xaaladda dalka iyo wacyigelin waxyaabo lacaynka xaaladda siyaasadda waa ka gaabsatay xaaladda siyaasadda in muddo waa ka gaabsan doona ilaa iyo sanado ku raji weyna dabcan inaan waqti dhow aan sameeyo wax siyaasadda ku saabsan waa gartay waayahay waxaan soo qabanayaa Basro bal oo filimka ku jiray ifraaxay Basroy waa tahay ma jeceshahay inaad ka mid noqoto tirishooyinka caalamka horumaray dabcan waxay aad jeclaan lahay inta yaraa dhana jeclaa inaan atirisho noqdo inkastoo haddana dalkeena xaaladiisa la socotaan dabcan dal horumar saas lagu gaari karo ma ahan fursadihiisana aad u yar yihiin marka waxaa jaanis ii noqotay wiilkan inuu ii soo bandhigay tan aadna ugu qancay in noqotay maxaa la waxyaabihii ii furi lahaa dadkan jiliinkayga aad u ammaanayeen dabcan markii la dhahaa jiliinka waa waxa dabcan qofka bini'aadamka oo u dhasho ma aha wax inta badan la sameeyo
heybad ilaahay qofka gaar uu u siiyey waaye marka filmaan aad u badan inaan kasoo muuqan doonaa jeclahay adigoo heybadaada ka faa'iidaysanaya insha allah waa gartay aabii hooyo markay dhalada kaa daawadeen oo haddii ay kaa daawadeen waxaad kala kulantay dabcan marka horeba kama qarinin waa u sheegay inaa filin aa samey doono oo saas oo yahay markaa hooyo u sheegay waxay dhahdeen waa filin aad u fiican oo wacyigelin ah wacyigelinta uu ka qayb qaaday waxba maysan iga soo horjeesanin wax caqabadaan kala kulmeen hal mar aan ka dhex galo horta markii aan doorka basra u dhiibay horta way adkeyd inaan gabar intaad hor maata aan dhahdo film baa sameynayna kadibna waxaa ka matalaysaa dabcan aad oo iga cabsanay qof oo ii soo diray waxaa xasuustaa inaan tiimkii qayb ka mida oo iida aad igaga dhawaay inaan u diro dhaho gabadhaas waxa u baahan filmka ka qayb qaadato bal ha loo fahansiiyo inay iga hormareen markii cabaar laan kadib la jilciyey inaan aniga umaada filmka aan fahansiiyey sababtoo ah macnaha maaragtay inuu shaqada inta la gelin ka hor fahansiiska aad u adag because kufsi hadaan macnaha si toos wax loo aaminaa in wax qaldan la sameynayo haddana mar walba waxaan ku dadaali jiray in ay wax ayada oo kaliya aysan amarkaysan ahaan ilaa ay dabcan familkeeda ay ka warhayaan si hadhow aysan problem kaga imaanin sababtoo ah xaraba wax aniga aan sameeyo maanta in ay ayada macala waalidiinteeda ku qanacsiin aysan hadhow la xishoonaynin oo ay la daawo karta macnaha marka ahaa aad iyo aad waa tahay fariinta ugu dambeysa oo aad diri lahayd adigoo jaaniska ka faa'iidaysanaya fariinta ugu dambeysa aad dirahay waxay tahay horta filmka doorka ugu muhiimsan waxaa saarnay in la joojiyo caad dhaqameedka ah markii qof dumar amaba dumar bisna ma aha laakiin had filmka qaybta dumarka aga hadleynay in waxyaabaha xaal hoosaadka la dhaho ama geed fariisiga ee odayaasheena wadaagaan waxyaabahaas inaan ka hortagno oo qofka asagoo karti leh oo maxaa la lahaa go-aankiisa qaadan karo nafsadiisa inuu waxyaabihii asaga dhibaayo oo ka hortago oo dowladdii ula hortagi karo oo xaqiisana soo dhacsan karo ilaan qofka maanta haddii qalad loo geysto haddii lagu sii daayo oo xaaloosaada la maraa la dhaho haddana biri ma joojinayo ilaan wuxuu ku fikirayaa sida horeeta haddana loo xalinayaa gabdhaha xaqi in raadsada leedahay xaqi in raadsadaa leeyahay waa gartay waayahay ugu dambeyn saabir adigoo jaaniska ay ka faa'iidaysanaya gabagabada barnaamijkaas ka soo gaarnay hal iyo labo maxaad dhihi lahayd ismaaciil waxaan dhihi lahaa dee fariinta aan markaas aan rabnay dadka inaan la wadaagno waa midaas cad oo ah micnaha inaan dumarka lagu xadgudbin waxaan dhihi lahaa nin walba Soomaaliyeed ama wiil walba Soomaaliyeed oo i daawanaya maanta ama maqli kara codkayga in markaas oo ixtiraamo haweenka waa hooyooyinkeen waa xaasaskeenna waa walaalaheen marka aan dumarka xaq dhowrnaan dhihi lahaa waa gartay guud ahaan intaas ayaan kusoo koobayaa wareysigii koobnaa isla markaana aan la yeelanaynay dhalinyaro Soomaaliyeed isla markaana ku dhaqan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo ka qayb qaatay iyagu filmaanta ka turjumaya wacyigelinta waxaan u mahadcelinayaa kameramaanada Faarax UK waliba Maxamed Karaamo sidoo kale farsamayaqaan Cabdiraxiin Ceelaabe tan iyo intaan ku kulmi doono wareysigan wareysi la-aan ah waxaan kaga tagay sida iyo amaanaan la